بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kasta aad joogtaan. Halkani waa shabakada bulshamedia.com ee aad ka dhagaysataan ama ka daawataan barta internetka www.bulshamedia.com. shabakadan bulshamedia sida aad magaceeda ka dareemaysaan waa shabakad ka faaloota arrimaha bulshada. maantana waxaanu ku soo qaadanaynaa qayb ka mid ah qaybaha bulshada. qaybtani oo ah sida carruurta iyo dhalinyarada Soomaalida ay ugu nool yihiin waxana uga bartaan dalka Hindiya. carruurta Soomaalida ee ku nool dalka Hindiya ayaa waxay dhigtaan iskuulada hoose, dhexe iyo sare. iskuulada ay carruurtu dhigtaan ay qoysaska Soomaalida oo iyagu halkan ilmahooda waxbarashada u keenay ayaa waxay isugu jiraan kuwa ka soo qaxay gudaha dalka Soomaaliya iyo kuwa ka soo guuray wadamada reer galbeedka sida Yurub iyo Mareykanka. waalidiinta carruurta dhashay ayaa markaad wareysato waxay ku sheegayaan in carruurtooda ay waxbarasho tayo leh u heshay, taasoo isugu jirta tarbiyada islaamka iyo qaybaha maadiga. waxaana arrintaas ka dheehan kartaa marka aad ku tukato masaajida ku yaal xaafadaha Soomaalidu ay degan yihiin ayaa waxaad ku arkaysaa dhalinyaro iyo carruur badan kuwaasoo soo camiray masaajida. xilliyada salaada laga soo dareero ayaa waxaad arkaysaa ayagoo kooxo u taagan wadooyinka masaajidka, taasoo ay ku cadaynayso in waalidiintu carruurtooda kula dadaaleen inay u helaan iskuulo tarbiyada islaamka lagu barto. sidoo kale carruurta ayaa xilliyada ay fasaxyada leeyihiin waxay jecel yihiin inay helaan meelo ay ku cayaaraan, waxayna aadaan garoomada lagu cayaaro kubadda cagta oo kuwaasoo u muuqda garoomadii ay ciyaalku ku cayaari jireen markii ay joogeen gudaha dalka Soomaaliya. carruurta cimilada iyo ciidda ayaa markay ishaadu qabato waxaad isleedahay ma garoomadii bacaadka ah ee carruurtu ay ku cayaari jireenba marka ay joogeen gudaha dalka Soomaaliya. waana sababaha dad badan oo Soomaaliya ay ku doorteen in ay degaan magaalada Hyderabad oo cimiladu ka agdhowdahay dalka Soomaaliya, dad muslimiinna ay ku nool yihiin, ay carruurtoodana waxbarasho tayo leh uga heshay iyo waliba waxyaalo badan oo carruurtu isku mashquuliyaan xilliyada ay firaaqada leeyihiin. dhalinyarada iyo carruurta da'dana ayaa markay gudaha wadanka Soomaaliya joogeen waxay damaal iyo dabaashaad u aadi jireen badaha iyo wabiyaasha, gaar ahaan maalinta Jimcada oo iskuulka iyo dugsiga fasax ay ka yihiin. carruurta Soomaalida ee halkan wax ka barata ayaa waxay dabaal u aadaan meelo yar yar oo loogu talagalay ilmuhu dabaasha inay ku bartaan, umana suuragelin in ay helaan bado iyo wabiyaal ku dabaashaan maadaama magaaladan ay ku nool yihiin aysan lahayn bad. inta ay ku dhex jiraan dabaashooda ayaa wajigooda waxaa ka dareemaysaa farxad iyo waliba ayagoo ku dhex ciyaaraya biyaha dhexdooda. carruurta Soomaalida ee halkan wax ka barta ayaa waxay ku sheegayaan inay jeclaan lahaayeen inay wadankoodii oo nabada dib ugu laabtaan ayna si qurux badan ugu dabaashaan wabiyaasha iyo badaha Soomaaliya.